Nimcaan Abiib Isaaq waa wiil Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan gudaha magaalada Boorama. Waxaa ku dhacay cudurka dilaaga ee kansarka, waxa uuna ku sii faafayaa maalinba maalinta ka dambeysa jidhkiisa. Waalidka dhalay ma awoodaan lacagta lagu goyn lahaa lugta uu ka soo baxay kansarka, waxaana xaafadda oo danyar ah ciidan u ah aabbaha dhalay Nimcaan oo isaga laftirkiisaba ah qof gacantu ay go'an tahay oo lixaad kala. Waalidka dhalay Nimcaan waxa ay sheegeen inuu xanuun ku hayo cudurka kansarka oo ku sii faafaya wiilkooda jidhkiisa maalinba maalinta ka dambeysa. waxayna ka codsadeen walaalaha muxsiniinta ah ee khayrka jecel inay soo caawiyaan. Waa kuwan waalidka dhalay Nimcaan oo ka warramaya xaaladda wiilkooda, waxayna ka codsadeen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee khayrka jecel inay soo caawiyaan wiilkooda. Maxamed yarkan aniga dhalay sanadkeegana dhaafay bishii 12 isagoo kubada ayuu kufay. kubadii hadduu kufayna markii waxba ma noqon meeshii uu iska socday. muddo 6 bilood ka bacdi meeshii soo kacday lugtaasaa saa noqoto ugu baranay. aniga labtayduna waan laxadlo gacanta bidixda ay go'an hay go'naatay 60 jir waanahay. daadaasaan u xoogsadaan degta ku xamaasha magaalada Boorama dhexdeeda. masruufkoodii iyo jalkiisiba kolka waanu tabar laahay. dhakhtar walba waan mariyay, dhakhtaradii aan geeyeyna waan goynaynaa bay yidheen. haba go'dee goyntii lacag aan maartay aan awoodi karayn baa la yidhi. kolkaa gurigaan ku soo dhexeshado yarkaas gurigu ii dhex jiifaa. muslimiinta ilaahayna waxaan ka codsanayaa wixii maartay gargaara in la ii fidiyo yarkaan maartay wixii aan wax ugu qaban lahaa la ii fidiyo. tana ilaahay hadday timaado waa alxamdulilah. haddana dee waa nimco ilaahay keenay. waan ku xamdiyayaa laxaadkayga iyo isaga saa noqday labadaba waan ku xamdiyaa. dee muslimiinta waxaan ka codsanayaa in gargaar la ii fidiyo oo lugta maartay yarkaa la sidii aan wax ugu qaban lahaa dhakhtarada meelihii anu awood anu waayo dhanba layla mariyo wax la ii qabtaan doonaya. muslimiinta ilaahay baan caawimaad ka sugaya, ilaahayba yaan caawimaad ka sugayaa. wax awoodan awlaad ilmaha yar ay ag fadhiyaan u hayaa ma jirto. awood ilaahay uu mooyaane odayga laxaad kala baatunka ugu xoogsada. hadduu ugu xoogsadana awood uu wax ku jaray, awood wax ku qaado midna uu kari waayay. walaalaha addoomaha islaamka waxaan ka codsanayaa ilmaha yar ee sidaa agteeda ku noqday inaad maanta wixii awood kartiin ee rabbi ii soo dhiibo inaad walaalaha ii fidisaan baan doonayaa. walaalaha saasaan idinka rajaynayaa xagga ilaahay xaggiinaba sidaa iyo nabadgelyo walaalaha. oo anigu waxaan ku aad buu ilmahan igu dhib qabaa. walaalaha Allah caafiyo idinka Allah idinka ajar siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale waxaan u wareysanay Nimcaan oo nooga warbixiyay xaaladiisa caafimaad. waxa uu ka codsaday ummadda muxsiniinta ah ee khayrka jecel inay soo caawiyaan. waxa uu yidhi waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ee meel walba joogta. waxaan ahay inaan waxbarasho ku jiray saatee kubad baa saa ku noqday lugtayda waad arkaysiin. dhalinyarta adduunka maanta joogta waxaan ka codsanayaa in la soo caawiyo iyo muslimiinta kale ee adduunyadaba ku nool. hase ahaatee maanta xaafadaydii way awoodi weyday dhakhtarka waxay u geyso. aabbahayna waa laxaad laayahay, waa odaygaad aragtaan. markaa waxaan ka codsanayaa in la soo caawiyo insha allah. Cabdishakuur Maxamed Cali, 5TV Boorama.